arrinta koobaad ee xafiiska qorsheynta soo jeediya xagga coverage-ka waxaa laga soo bilaabay 42 in la gaarsiiyo 48 bay ahayd waxaa la gaarsiiyay 45 waxaan leenahay shaqooyinka aan ka hadalay 95 la qabtay waa activity-yadii la qabtay ee xafiisku magaalo iyo miyiba uu ka qabtay 95% buu qabtay oo uu perform gareeyay laakiin mashaariic waaweyn oo tiro yar oo saameyntoodu aad u badnayd xagga magaalooyinka yaan bilaaminba ama intay socoto aan dhammaanin oo deedna samaynin coverage-ka aan soo gelin iyo ka faa'iidaysigii saa darteed 3% ku saas ku habsaamaya idishaale cobasha mashruucaasi waa mashruuc la tijaabiyey oo xadhiga laga jaray laakiin isagoon dhammaystirnayn baa xadhiga laga jaray dibna haddana waxaa loogu sameeyey evaluation baa loogu sameeyey dhaliilo fara badan oo ka soo baxay anu xafiiska waxaan tagay iyadoo heshiisya maxaan la diyaarin la wado oo hawsha ay ka taagan tahay maxaan ku raadayay sidii loo dhammaystiri lahaa arrinta ugu muhiimsan laakiin waxa weeyaan way dhici kartaa tuubooyinka dusha daadsani way jiraan way dhici kartaa oo way soo arkeen laakiin remedigeeda tallaabooyin aan markii isla qaadanay baa jiro qandaraasleyda aanu hadda iskula jirray oo sidii loo hagaajin lahaa ee loo dhammaystiri lahaa wixii dibadda yaalana loo gelin lahaa wixii maxaan ku raadayay defect ku jirana loo hagaajin lahaa shaqayn la'aanta ugu badan inay water point-yadu shaqaynayna waxa weeyaan biyo la'aanta ka jirta sourciga ama mashruuca halkuu ceelasha biyaha lagaga soo riixi lahaa taasaa markaa jirta dhibaatada ugu badan tahay waaniga markii horeysay bilowgiiba sheegay warbixinta idhi ceelal baan u qorshaynay ilaa 2-3 ceel inaan ku daro si systemka biyo badan loogu helo ka wada shaqaysiiya water point-yadii iyo wixii la xidhiidhaba hawshan qabri dahar kabtinaag mashruucaasi waa mashruuc dheer buu ahaa waana dhab in uu maxaan ku rahdayay dhilaansi fara badan ka jiray 2011 la bixiyay shirkadii la siiyay maxaan ku qaadatay ma ayna sidii loogu talagalay si ku dhowtana u qabanin mashruuca markii la fiidiyay guud ahaantiisa 22% inay wax ka qabteen baa la qoriyaa la soo qiimeeyay markaan anagu booqashada ku tagnayna waxa yaalay hal crane oo khariban baa yaalay qofna waxa joogay ama bili aadan ka shaqaynayna hal waashanaan oo Soomaaliya joogay wax kale oo joogay ma jirin xilliga kadib aan dina go'aan ka qaadano terminate garaynay agreementigii lacagta uu qaatayna lacag badan oo 200 milyan gaadhaysay ahayd laakiin dib u xisaabtankii markaan sameynay lacag badan baan ku yeelanay lacagtaana inaanu xisaab isla galaan rabnaa iyo legal case kadibna mashruuca laftiisa maadaama rescoping dib loogu sameeyay waxaan rabnaa inaan ilaa dalaad uga faa'iideyno bulshada wixii shaqooyin laga qabtay ee dayacan halka yaala wuxuu sugayaa go'aanka aan isla qaadano ninka isaga ah iyo kadib shirkadda kale aan siinayno hadii ay yiraahdo maxaa yeelay hadduu hadda yiraahdo aan qiimeyn anagoo shaqo kale ka qabanay de wuxuu ku darsan shaqada kale ka qabanay marka waa inaan meel iska saarno horta marka hore isaga doodiisa inaan meel iska saarno weeyaan qiimeynta lafteeda waa inaan qiimeyntu ay meel istaagto مشروع فيق حمراء وحويان ومشروعي مقوين فيق حمراء ويان وحرق على جات شري دي وحوين تي سي لكن إسلام مركي بوان وذا شوقني أو مدحين كحجين كيتيم كي حبيس كبيها يحمل بدن الكابينة دي أنكوا ذا قريب قال مالين كي حمراء لكن قيمتي اللي قسم هي مشروعة دليل بدن إني كتشران أو جارهان إن عباي بلانك وكتشرو لنا إن اللي بدلنا اللوب بعيا إلى 300 كيلومتر ولا سلاقاتي شقوين كي نوعها وحصوب هذا وكلام مركز دايركشن جنجي الله سماية بايب كأو مري مال عدلا مري اللي قصود وملامدة اللامدة قد حيصفيق يا حمر الله مريو إن أي تولوين فربضنا ماشى كويا لا يصوم رضانا كدبنا تولوين كاسا يو باهن دونا واتر بوينتي ريزرفاير إن لو سمايو تانا وقدر مشروع على فتيسة وحكلو الشرائية دنا إن لو باهذي goobihi hore kaydasha laga sameeyay ilaa mugweyn oo meesha sourciga ah inayna lahayn guard house iyo maxaan ku dhaw wax la mid ah inay lahayn sidoo kale wadada maamuluqiya xagga u kacday mugweyn marta reservoir waxa jira ay dul martaa jiro ee aqalka u marto dhinacana ay waraarta dhinacana reservoir ka yahay hal baabuur haduu ku fakada reservoir kaas waa everywhere saa darteed retaining wall inaan u sameeyno oo ku daro qorshaha ayaan isla qaadanay marka daraasadaan soo sameeynay waa dhowr jeer mashruuca maray kulli hawshiisa way socotaa qorsheyntuna way ogtahay daraasad fara badan oo laga soo sameeyay iyo discussion badan baa waanu ka sameeynay iyaga laftooda waanu isla qaadanay hawsha iyada baahida jirta iyo xaaladdu siday tahay hadda lafteedana action waxa u baahan tahay degdega actionkiina waanu qaadnay hadda xaaladda la xiriidha 7 magaalo weeyaan laakiin biki iyo raasiya lagu soo darayo kuwa ay lagu xisaabiyo inay magaalooyin yihiin biyagelinta magaalooyinka biki iyo raasa lagu ma daro ee biyagelinta miyiga ku jiraan iyagu
marka mashaariicdaasina biyaha hadda dadka ay siinayaan adeeg bay bixiyaan laakiin ma dhamaystirade waan sheegnay markii horeba raasa inay boqolkiiba 15 harsan yahay river intake bikina distribution inuu harsan yahay laakiin si fiican bay adeega u bixinayaan hadda qabridaar biyo gelinteeda wax soo kordhay wuu soo kordhay ka faa'iideystayaal baa soo kordhay kulli water supply way joogaan ka faa'iideystayaal baa soo kordhay meelo cusub baa la geliyay source cusubna wuu soo kordhay waxana soo kordhay dad cusub oo biyo la gaarsiiyay baa soo kordhay coverage-ka kordhinaya soo kordhay waa cadday taas iyadu wayna joogaan kulli nimanka injineerada khadra kulli arinta ay sheegayso waa run xagga gudaha waxaanu ku mashquulay inaanu dadka waraabino abaaraha u cararno laakiin aan gudaha ku waxayno deedna baalkii qoorta xidhano xagga kale ku dhajinidhaano xaggana dad imanayaan aad ugu ma aanan mashquulin xagga dhaliil baan ku leenahay waana isku daynaa hadda oo bilowna inaan saxno dhaliishaas way jirtaa xafiiska sida uu soo jeedinayo way jirtaa laakiin waxaanu mainly ahay dad baan life saving baan ku jirnay xaggaasaanu gebiga nabigu aanu ku faruur xidhnay gudaha laakiin waxoogay weakness ku jira dhinaca maxaan ku raahdaayay reformyada qaabka hirgelintooda iyo calaamaadkii iyo qaabkii loo sameeyay tawaanu qiranayna waanu sixi doonaa hadii la yiraahdo ballicad ceelkaas waa la qoday laakiin wali wuxuu u baahan yahay bam testing iyo wuxuu u baahan yahay waana tagi doonaa hadii la yiraahdo laakiin biyaha laga gaaro biyo aad u yar weeyaan waa ilaa 2 litir barsa ka weeyaan birqod iyo marsin nooma qorshaysanayn inaan boosterka gelino light lacagna uma hayno laakiin ceelashii way noo qorshaysna ceelashii waan gelinay labadii ceel ee biyaha waraabinay waxa kale oo jirta mid oranaysa ilaa iyo qorile in la geeyo iyo bamaas in la geeyo arintaasi way fiican tahay waan daraasaynay lacag bay laakiin iyo miisaaniyad bay u baahan tahay sourciga uu jira ceel 43 ilaa 40 waxaan ku litir barsekana ayaa birqod ka qodan hadii lagu xiro oo la hagaajiyo boosterada la gaarsiiyo ilaa iyo qorile si fiican buu u cabayaa marka arinta noocaas kharash bay u baahan tahay miisaaniyad laakiin qorshaha noogu ma jirin arinta la xidhiidha gobolka Shabeelle tuubooyinka dhanaan horta mashruuc hore u ahaa mashruuca waan dayactirnaa emergency-ga dartii baan u dayactirnaa wax noo qorshaysnaa ma ahayn mashaariicdii aanu emergency-ga ku galay weeyaan 30 kilomitir baa looga soo jiiday qabalaha bacaad la yiraahdo magaalada dhanaan halkaas biyo ku soo gaarsiinay water point-yadii iyo wixii oo dhanba dararkiiba halka waxa laga cabayaa dhanaan si fiican buu u shaqeynaya laakiin tuubada berigii hore dhulka lama gelin si fiican dib baa ka jira taas in dib in la geliyana miisaaniyad weyn ba u baahan tahay inta wixii dib loo wada qodo in la bedelo dhulka la geliyo waa miisaaniyad weyn ahayn weeyaan laakiin inta baanu hagaajinayna kolba aanu dadka ku soo gaarsiinayna emergency-ga waa wixii kolba awoodanada